الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan booqasho kormeera ku tagnay xarunta dambaarista dalka CID anagoo ka socona xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka taliyihii qaybta dambaarista taliyadoodisho ayaa dabcan halkaas aan ugu tagnay oo warbixin naga siiyay maxaabiista qaybta ku xidhan xarunta dambaarista waxaa ku xidhan maxaabiis aad u fara badan oo ilaa 305 maxbuus isugu jira gaaraya rag iyo dumar bay isugu jira qaybaha kala duwan ee dambiyadana u xiran qaarkood ay maxkamadayntoodu socoto kuwa ka mid ah baaristoodu ay socoto kuwana dabcan dhammaantoodna sidaan meesha ku aragnayna maxaabiis maxkamadda la wada horgeeyay intooda badan kuwana ay hadda dabcan ku socoto xidhitaankoodu cusub yahay mid ayaan u soo wareysanay si hoose ayaan ugu kuurgalay waxaanan markii labaadna aan taliyaha xafiiskiisa si hoose ugu xog wareysanay waxaana nooga muuqataa in ay runtii ahaayeen dad yani kiisaskooda si wanaagsan looga soo shaqeeyey wax probleman aragnayna ma jirin anaguna meeshaas awaamiir iyo waxaan ka bixinay iyo talooyin intaba waxaan rajaynaynaa taliyaha qaybta iyo dadka la shaqeeyaba inay talooyinka iyo waxyaabahan bixinayba ay dhaqan gelin doonaan insha Allah iyo awaamirtaan bixinay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qaybta imaanay una kuurgalay shaqooyinkii socday especially dadka ama si gaar ah dadka loo haysta dambiyada aan si hoose ugu kuurgalay uguma dambeyn doonto insha Allah maanta kormeerkani uu soo laaban doonaa oo xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka waajibaadkiisa ayayba ka mid tahay kormeerka goobaha dadka lagu xidho oo dhan sidaas daraadeed xafiisku uu joogtayn doonaa kormeerka dhammaan meelaha dadka lagu xidho saaxiibaday iyo taliyaha qaybta oo shaqadan maanta nala qabtayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inay halkaa ka sii socoto